wardaarodu iska tuura bustaaqoyan jaasa idin dhashay awal dhagaad ka awdanaysan bustaaqoyan uma duqayseen ya hadaa darajo leedahay isaaq uma doodeen maantay ya oo garaadadaada iyo dadkaaga iyo daarood iyo ehliyadaada ma soo aflagaadaysan oo dad baa anaga magaalada shida ka rida dad baa shida ka rida shidada laga riday magaalada ka bax meesha muuso ka bax wallahi dadkayga leh oo madaxdayda wallahi liidnimo arka wallahi garaadadu ka bax muuso markay dhahan wallahi waa ka cishooda muxuu baxaya muuso yaa kaga liita gooj cad ku jiritis ma sagaale hooyadii saare kibirka loo diray waxaad sheegtay ardaydii la laayay oo jaamiciinta ahaa wiilasha jaamiciinta kibirka lagu laayay in heedib kuugu yaalo madaxweynaha Soomaaliya lagu doortay Ismaaciil baa ku wata mari baa tahay adu afar faraq hadda Ciise Maxamed soo kacay wallahi magaciisa Maxamed aan la aasayn baqo leedin kana yeeray Allahumma salli ala Muhammad ilaahu in si iyo jumba waa ka magan galay rabbiyow halkaan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta inta aragayga iyo codkayga garanaysa inta xabiibkayga aan xaasidkayga ahay waa in salaamayaa meela joogtaanba waxaan salaamayaa biya daarood Ismaaciil meela joogaanba salaanka bacdi aan jataygu maanta anigoo jooga dooxooyinkayga aan aad u jeclaa ku socod bartay in walba meeshu ku dhashay uu jecel yahay Paris bay la tahay oo aniga hotel iyo fadhi iyo kulli dooxooyinkayga ay gala qurux badan gala fiican baan maanta joogaa salaanka bacdi maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob waa xildhibaanka indha yare uu adeegaya Somaliland qodobna waa ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Khaliif haliyeyga qodobka saddexaadna waa gedo buuqa ka jira haddaan soo laabto xildhibaanka Somaliland jooga oo isagu leeyahay u jooga oo sidoo baqti u cunaayay baqti iyo xaq uusan lahayn iyo agoon dhiigeed iyo nin haliyey madaxa laga toogto dhiigiis iyo dhulbahante iyo magaci dhulbahantu awday suu ugu cunayay soor xaaraana afkiisa labada dibnood oo ku yaala inuu holinaariya waa muuqata holinaar inuu yahay wuxuu adeegaya reero haw adeegay akhlaaqina akhlaaq ma leh anigu waxaan qarinahay haddaan hadlayna oo yaa u hadashay yaa matasha managana matasha yaa matasha anaga hilibku ugu yaalo maskaxda lagu fuftay nima matashid anaga wiilasha isaaq oo goojacad ogadeeda hoganaya oo xabada isugu jiro qorigu isugu kaay jiro waxba aan la wadaagnaa laakiin adiga waxba kulama wadaago waxaan kula wadaag adduunka soo dhana garacba baabiya garacba ta waxaan kula wadaagana ma jiro heeraa ku soo gatay ku soo iibsada lacag kala soo baxay deexbaa laga soo gatay dalaqyadii hawde $2 laga soo baxsho daabada tahay hadaa darajo leedahay baad kama dalowdeen dufuqaar sideedii dharaar diga maxadeen deeyarid uma dhaabiseen diristaheen sida neef dabeera dhabada uma duqayseen ya hadaa darajo leedahay isaaq uma doodeen maantay ya oo garaadadaada iyo dadkaaga iyo daarood iyo ehliyadaada ma soo aflagaadaysan oo dad baa anaga magaalada shida ka rida dad baa shida ka rida shidada laga riday magaaladiina maxay tahay shidada laga riday mise magaaladaas ama tashaamse hartiba ama tashaamse dhulbaante dadkooda aanu guro iyo dhaawacooda aanu qaadno iyo dhibasho aanu la dhimano iyo ardaydooda aanu wax baro iyo maxaan ku sheegay dhig joojin aanu u geyno Soomaaliland kala tashanayna ma jirto taa haddaanu ka seexanayna anaga ciiboobin nina walaalkiis illa kagama haro hore baan u sheegay waxaan niman wiilan hooyadii walwalcino wiilal kala dhan harsan waayay hooyada joog noqday ilaahay baa garab uga dhigay ilaahay baa hiil uga dhigay ilaahay baa walaal uga dhigay calaan baa tahay aamuska horta ku qurux banday waa ninka doqonka la soo iibsaday oo la soo gato neefka tan Cabdirasaaq baan gudbaaya Cabdirasaaq waan ku hambalyeynaya oo waxaan ku iri waxa ku hambalyeynaya biya daarood ama dal hajireen ama dibad hajireen waan ku hambalyeynaa min karmeed baa tahay baarqa baa tahay shiishka abaan ku iri xabada la isla dhaco maaha wallahi xabadaha ku dhufatay Musabbix ya wallahi xabadaha ku dhufatay Musabbix wallahi todoba bari baan hurdib aku xabadaha Musabbix uu tagta tareesada la dhacday nin ragaata wiilka laba jeer baa lagu rayam maalin waa maalintu dhasho oo wiil baa dhashay baa la dhaha maantana waa maanto kale oo booska indha yare iyo xagla toosiye iyo hebel koore iyo yaasiin hal siiyo waxa qashanka booska joogeen baad joogtay raasa ka baar qabays
markaasaa ka baarqabaysa baan ku oo waxaad sheegtay inaan nin dhalada tahay oo waxaad sheegtay in hilibku kuugu yaal agoomaha aabayaashood kibirka loo diray waxaad sheegtay ardaydii la laayay oo jaamiciinta ahaa wiilasha jaamiciinta kibirka lagu laayay in hilibku kuugu yaalo waxaad sheegtay ardayga calanka Soomaaliya la babanayay saacad maskaxdeeda kama baxo inaad hilib kuugu yaalo maskaxda lagu dhuftay waxaad sheegtay gabdhaha la laayay in hilib kuugu yaalo waxaad sheegtay laasanood in hilib kuugu yaalo waxaad sheegtay daarood in hilib kuugu yaalo waxaad nala noqotay nala damiir baa nala noqotay in damiir ku jiro baa noqotay waan ku hambalyeynaa magac fiican baa ka raacay goobta inda yarana magac xumaa ka raacday indana magac xumaa ka raacday iyo ceeb iyo inda yarana ma wax la labada indhood ka soo dhaceen awal buusan indhalaankaasi kaana ceeb baa ka raacday adigana waxa ka raacay magac aan saa taariikhda ugu qorayn geesi dhaliyana kiisata intaas waa inta tan saddexaad waxaan kaga hadlayaa nabadda maalin kasta la sheegayo oo beenta Muuse Biixi iyo beesha caalanka la sheegaya way ka gaabisay arinta laasano federaal waa ka gaabisay arinta laasano marka anagu hadda beer caalan uma baahnin maxaan ku sheegay federaal uma baahnin Muusena nabadiisa uma baahnin cid nabadiisa Muuse u baahan ka bax meesha Muuse ka bax wallahi dadkayga leh oo madaxdayda wallahi liidnimo arka wallahi garaadadu ka bax Muuse markay dhahan wallahi waa ka cishooda muxuu baxaya Muuse yaa kaga liita gooj cad ku jiritis ma isaga leh hooyadiisa leh yaa kaga liita halkaasaan ku leynaya halkaas hantidiis ku baabaysa halkaasaan jifida kaga jeedaya wallahi aan kaga guuleysanaya sugur u leeyahay maahay Muuse bixidiisa wax ka jira ma jiraan wax ka soo naasacadna ma jiraanin Muuse ha bixin bartaada joog xogaaba maalin baan jabsanaya meeshaada joog waatan Muuse wax nabado Muuse ka soo naasacad ma jiro ninka la yiraahdaa maxaan ku sheegay Xasan Sheekh iyo wixii beesha caalanka iyo waxa uu sheegay iyo qaranada madoobaysa iyo wuxuu sheegayana waxa weeye ninku dili harkuuba shiido weeye waa jawaan xaratay oo ka stigser xurakiisu sidatoy eerka kiidhiga u dacwootay weeye Xasan waxa la weydiinayaa maaha nasabnimo inaan wax weydiinana waa khalad xasanow go'aankii anigu aan sheegay oo Soomaali oo dhani maalinta ay yaabanayd oo adiyo ninka la yiraahdaa Ismaaciil Horor iyo Muuse Juugaan ay ku gasheen meesha la Jabuuti oo daarad hal cuno ay ahayd iyo hal qasho walaalow laasanood waa gartay laasanood meesha ka bilowday dagaalka xasanow waa gartay oo ilaygadana waa ku jirtay oo maxaa la yiri daaroodka mareexaan iyo dhulbahanta ugu tugtugroone هلا أبارو ميالي والله بين بأسو شكت بالله تانية سنة دان دوين تانية سنة كهورية ساعة دان دوين كذا اللي قلتها هي محاكة شرح لكن فرماجة شوقي كذا وقلت هايس وحل بانا دي وحيدا بوبيس نحبا استمع مرينيس ما أنت أنا واحد بيد حجوكتا وما تدي وهاد بالعونة تقبطين بان سارية والله بالله طلع سقاشن كبير والله من اساس Soomaaliya xasanow sagaashan kibay u laabanaysa dawlad baa lagu dhibay dhisan iyo wadan wada quruxa dhalaa baa lagu dhibay wallahi wadanka tagaysid banku wallahi wadanka tagaysid shimbir hadda koorna waa ku sheegay masuul hada ka tahay xasanow maalinta qiyaamo waa lagu weydiinay dadka gada jooga ku walaas caano jooga kulli calanka Soomaaliya kulli su'aasha waa lagu weydiinaya daaroodii hawiyatoona lagu weydiinayo xil baa qaado lagu dhaariyay lagu dhaariyay nin xil qaaday qaad waxa lagu doortay xasanow waxaadan qaadi karin oo abaal in lagu doorto aadan lahayn daarood meel uu joogaba war weynoo dagaal horana waa idin maanta gada tan maanta laga sameeyo laasano tii laga sameeyay teeda kale talabaan xasan ka sameey tii laasano laga sameeyay teeda kale raba xasan ka sameey war ninka la yiraahdo kii xunka hebel madooba lagu sheegayo laasano meesha la yiraahdo kismaayo xaaraanta ku haystayo aan kana dhicin kana aakhirin kana dib dhicino war maxaa gada ka yaal war madaqon baa tahay tolkii loo tilmaamayo oo lagu dhufanayo loo tolkaad ogaadeen ma matashid absama gada u heelanayo oo ma jeerteen baa u heelanayo oo ma reexaan baa u heelanayo oo gada waa guri daaro والله نبات كقادم منه وبالله نبات كقادم منه حسنا وبانكو يري والله إن لو سمر ربيو إن أنا عو كدحين والله وذا حمر
inta qaato inta saa guri muraada loo gasho neecawsa isugu babinayn inta gada xabad ka rido laascaanood xabad ka rido ya xasanow inaad nabad ku seexanayn ta indhaha iyagana waan kala haynaa waxaad walaaqaysana waan ognahay waxa ka jira wadankana waa ognahay wixii maanta oo hadalka laascaanood ka sameeyeen weeye gadana ya waxa weeye xasanow waxaad walaaqayso waan ognahay dadka dheregsan baan nahay dad damiirku maqan yahay manihin waa tan gado waa tanoo gado waxna ka dheefi miisaanin adiyo Ismaaciil madaxweynaha Soomaaliya lagu doortay Ismaaciil baa ku wata mari baa tahay adu wadan nabada joogta wadan weynaada madaxweyne u tahay ila Puntland ila Sool ila Sanaag ila Gado ila Kismaayo ila maxaan ku jagaa ada madaxweyne u ah ya maneef baa tahay laga ilooyaa hada iska qoslayso ilaahay hadaba kuma dhanaana war Ismaaciil Umar Geelo Jabuuti jooga see ku oran kara wadanka Soomaaliya lagu dhaariyay ee daarood iyo hawiye iyo dir iyo u kala saar see ku dhigi kara oo u qaadan kartaa waxba naga qaadamaysa anaga xasan waxa naga qaadaysa jiro war daaroodo iska tuura bustaa qoyan majaasa idin dhashay awal dhagaad ka awdanaysan bustaa qoyan iska tuura bustaa qoyan waa tan baa isu hartay garow ka jirta ya garow afarta daalin oo jooga oo xoolaha garow ku soo qaato garow dhalaa raba inay wax u dhimaaneen ya oo magacayaga raba inay baabi'iyaan oo halka la rabo in buuq laga sameeyo oo fidmo laga sameeyo ya والله waxba inaan naga sameyn karin wallahi anagu sida loo toogto waan naqaana tuug sida loo toogto in aan baashay ragooda sida loo leeyahay laydin leeyahay wallahi isnaan ciiso idin saxiixaba ku filanti oo surka laydin ka soo qoro yaa ku filanti garowana idin kala tashanmeen garow madaxweyne waxa way madaxtooyada Puntland weeye tacabka iyaga weeye magaca iyaga weeye adduunka qofka kaas waxa uu ku leeyahay garow waa joogta caalamka gashay haye dhaawac ayaga baanu keensanayna diyaaradii garoomadii baa noogu yeeldeerada dhaawac ka saarsanayno haye waxaanu idin aragnaa ninka maanta garow dhexdeeda raba inuu qulqulata ka rido oo doorashada iyo afaaraha iyo dhaho ma soconayso oo hadba xildhibaan mas'uula meel lagu baabaxsado de waxaanu arkaa de nin raba ya jabka laascaanood in raba way inna sabab lamaha macna laascaanood bay maantay ardaydina joogtaa xaasaskina loo soo raray dhaawacina la keenaya magaalo u soo gudho dul saaran way ninka maanta garow dhexdeeda roora oo hadba qori meel u qaata fatanti dhal wallahi qori faraare meel baa laga soo wada jeensanay tuug dhasha tuug baatay waa tan garowe tan madaxweynaha Puntland inaga doorasho horta inoo ma ekeynba mid qof iyo codana inoo ma ekeen taan hadeer ka ololeynay oo maxaan ku sheegay mid qof iyo codana ma ka mid 60 ka xildhibaan inoo ma ekeen midna inoo ma eka war laascaanood baynu eeg madaxweyne laascaanood u jeenso tuugta garow joogtay ya oo qoriya garow ku foorinayso war ma waaweyn wax lagu tarin waraariya walaalkaani war laascaanood baa ku baahan meesha lagu dhaaranayna waa garow meesha loo dhaaranaya waa yoocada ya war xagga ku fooray qoriga xaggaas looga baahan yahay ku fooray ya madaxweynuhu Idriis Labista loo baahan yahay Sheekh Asad Idriis Labista loo baahan yahay tuugta halka timi oo daalimiinta ah hadayna matalayso halkaas looga baahan yahay tuugta garow timi haye hadayna matalayna waa la leeynaya intaas laga guraay islaanka siciid la sugay intaas la ninka guraay koob shaanaga ma joogtan isa maxamuudna ma matashaan isa maxamuud magaciisina aasamaysan idinku afar faraq hadda isa maxamuud soo kacay wallahi magaciisa maxamuud inaan la aasayn baqo leedin kana yeeray salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh